uurka leh ee uu soonku ku culus yahay maqalla laga rabaa marka ay dhasho mise cid kale inay afuriso ayaa u furan oo soonku waa uu ka dhacaya. dumarka uurka leh iyo kuwa nuujinaya waxa u bannaan horta inay iska afuraan. waxaana macnaha tilmaamaya xadiidka Anas ibn Malik al-Ka'bi Abu Daawud iyo qeyrkii wariyeen oo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam alla wuxuu ka dajiyay soonka haweenta uurka leh iyo midda nuujinaysa way iska afuri karaan marka taal islaama diidana inay afuri karaan laana ilmihi ayaa u baahan wuxuu quuto ama uurka ku jiro ama naas nuugayo hooyadii uurkeeda lagu jiray ama naaskeedii la nuugayeen nafaqay u baahan tahay oo la'aanteed way dhibaatooni shariicadana qawaacideeda ay ku dhisan tahay waxa weeyaan at-taysiir fududayn waay meeshii aday galo shariicadu waa fududaysaa way afurayaan marka ha afureena maxaa laga rabaa halkaas culimadu marka isku khilaafayaan badankood culimada jamaahiirtoodu say qabaan waxay leeyihiin waxa laga rabaa qalla laga rabaa waxayna uga qiyaas qaadanayaan ruuxa xanuunsanaya uga qiyaas qaadanayaan ee quraanku sheegay faman kana minkum mariidan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra ruuxi xanuunsanaya soo qalleeso lama dhihin tanina waa nooc xanuunka u ege hasoo qallaysay dheheen qalla laga rabaa bay u badan yihiin tayib hadii qallahaasi ay kari weydo oo qalluhu aad ugu bato oo ay xamili weydo marka waxa jirta ra'yi Abdullah ibn Abbas iyo Abdullah ibn Umar saxaabada qaar kamida ka sugan al-Imam Ishaq ibn Rahawiyana uu maray oo dhahaya raashin bay bixinayaan waa fatwo markaasi midii soomi kari weyda oo ay ku bataan oo ay ku adkaato awoodeeda ay ka wax weeyaan ka tambadato marka loo fatwoon karo waay meel wax looga raadin karo waay laakiin asalku wax way qalla waajiba wallahu a'lam.